Ladies and gentlemen, waa idin salaamay. Videogan waxaan idin tusi doonaa markaasi website markaasi aan designadooda dib u bedelay oo markaas dad customers kamid ah ay lahaayeen. So website-yadan markaasi waxaan ku tusi doonaa marka hore sida ay u muuqdeen iyo markii aan design gareynay sida ay u muuqdaan. So marka aan videoga isla daawano. website koowaad ee ugu horeeya magaciisa oo kana waxaa loo yaqaanaa markaasi Cabdirasaaq Fashion. So website-kani design-kiisa haddii aad fiiriso sidan ayuu u egyahay marka hore. maxaa ujeedaa markaasi qaybta headerka inuu sidaas ahaa sidoo kalena isbedka website-ku xoogaa markaasi yaro culeys ahaa. So waxaa ujeedaa markaasi page contactiga waxyaabaha qarinay maqan yihiin oo website-ko dhan markaas isku dhex daadsan yahay. So marka haddaba sidaan design-ka website-kan u bedelnay aan aragna markaasi outcome-ka ama markaasi natiijada soo baxday. after marka aan website-kii design gareynay haddii aan tab cusub furno design-ka oo website-kii aan booqano waxaa ujeedaa markaasi design-kiisii inuu markaasi sidaan isku bedelay. waxaa ujeedaa marka meeshaan kore inaan home-kii aan ku haysan wejigii hore kor aan u sameyno waxa la dhahay header oo markaasi social media icons aan u sameyno oo qofka dul tago sidaas ayuu muuqanayn. qaybtan waxaa ujeedaa contact shop-ka bottomada sidoo kale website e-commerce ayuu ahaa qayb waxaan u yeelno products alaabo markaasi lagu dhex iibinayo. So waakaas qaybtana marka website-ka waxaan ugu sii dhignay qayb postiyo ama blogyo markaas la soo qoray oo qofka markaas halkaasi ka akhrisan karo article. qaybtana waa qaybtii footer-ka markaas uu qofka markuu dul tago linkadiisa soo muuqanayo. soo kaas waa page-ka home-ka haddii marka website-kan outcome-kii ka soo baxay page-ka blog isaguna soo u muuqdo page-ka blog isaguna waa kana oo postiyadii ama articles-kii aan soo dhignay sida ay u muuqdaan. haddaan postigan tusaale ahaan ku dhufto kaba soo qaad waxaa ujeedaa design-kiisa inuu sidaas u muuqanayo markaasi uusan sidii hore laakiin marka hore sidan uusan u muuqan. haddii aan ku dhufto page-ka si lamid ah store-ka waxaa ujeedaa marka sida inuu yahay uu qofka alaabta dul taga markaas halkaasi qiimaheeda waxay u egtoo dhanka arkayo. So page-ka about us kaasi lamid ah haddii aan ku dhufano sidan buu u muuqdaa waa company-gan iyo dadkii iska lahaa faahfaahintooda markaasi incoming tag-ka sidoo kale contact us haddii aan ku dhufano iyaduna waxaa ujeedaa inay sidaas ay u muuqanayso. meeshaan waxaa ujeedaa numberkii iyo formkii qofkii lagala soo xiriiri lahaa iyo macluumaadkiisii iyo xogtii dhan social media accountskii intaba markaas ay ku taalo. qaybtan ugu horeyso important linksna haddaan privacy ku dhufto kale kaas sidaas ay u muuqanaysaa privacy policy-ga terms conditions sidaas ay u muuqanaysaa. So haddii marka mobile ahaan u fiirino website-kan sida uu muuqanayo aan shaashadiisa ka dhigno mid mobile ah oo kale waxaa ujeedaa mobile-kiina sidaan u muuqanayso. okay mobile-kiina sidaan u muuqanayso dadka mobile-ka haysta website-kiina sidaan u arkaan qaybta menu-ga kaas hadday ku dhuftaan sidaas bay u arkayaan. qaybtan hoose markaasi bottom-yada sidaas ugu soo muuqanaa qaybta products sidaas ay ugu soo muuqanaa qaybta pages-ka sidaas ay ugu soo muuqanaysaa qaybta blog-ka kale haddii aan ku dhufto sidaas ugu soo muuqanaa qaybta contact us kale page-ka haddaan ku dhufto tusaale ahaan sidaas ugu soo muuqanaa. soo marka kaas qaybta about us haddaan ku dhufto iyaduna sidaas buu ugu soo muuqanaysaa. so website-kan outcome-kiisa markaas sidaas ayuu soo baxay ugu dambeyn mobile ahaan sidaas ugu muuqanaa. soo markaan isla fiirina markaasi website-ka ku xiga. so website-ka labaad markaas magaciisa waa kaas waa techstudio.net. so website-kani marka hore sidan buu u muuqday design-kiisa iyo qaabkiisa. so dabcan saa ujeeda markaas aad u muusan nuurin oo qofka waxaa ujeedaa meeshaan maxaa la social media icons inay weyn yihiin page isku daadsan yihiin. so qaybta surface-ka page-ka sidoo kale sidan buu u muuqday markii hore. okay footer-ka saaid markaas u waaweyneed markaas qoraal ku qornaa. qaybta contact us sidoo kale isaguna maxaa la haay sidan bay u muuqday markii hore. okay soo marka tag studio markii hore sidan ayuu ahaa. soo isaguna aragna marka sida isku bedelay natiijada ka soo baxday. soo haddii aan tab cusub furno aan website-kan isaguna aan booqano aan caadi u galno techstudio.net. so waxaa ujeedaa resultii ka soo baxda markaas inay sidaan tahay oo aan sidan u bedelnay. dabcan website-kan waa blog qofkii iska lahana postiya articles ayuu soo qoraa qayb surface oo ku bixiyaa. soo marka design-kiisa sidaan ayaa u bedelnay. website-ka noocan weliba sida loo sameeyo kale waxaan ka diyaarinay course ayaan ka diyaarinay markaasi oo sida blogging website loo sameeyo website noocan taagan wax yar laakiin ka bedelan. soo qaybta footer-kan sidaan u eg tahay markaasi isaguna haddaan page-ka blog aan booqdo sidoo kale kaas saa ujeeda sidaas buu u muuqanaa. postiyadii articles-kii thumbnail-kii wixii dhammaay
qaybta sidoo kale qofkan wuxuu bixiyaa markaasi qaybta surface-ka hadaan booqdo surface buu bixiyaa so surface-ka isaguna waa kana sidaan ayuu u egyahay so meeshan web design-iska waxyaabahaas xogtiisa ayuu kusoo bandhigaa so sidoo kale haddii qof karo bottomkaas qaybtan waa graphic qaybtan waa content so haddii aan ku darno aan ka fiirino page-ka xiga ee about us so page-ka about us isaguna sidaan ayuu u muuqdaa contact us si lamid ah sidaan ayuu u muuqdaa so marka waxa ujeedaa website meeshaan inuu ka soo baxay different ahaan oo kii hore markaas ka duwan design-kiisa so marka kani waa website labaad oo design-kiisa markaas mid kamid ah client-kan aan u sameeyno oo sidaan aan ugu bedelnay so aan isla fiirino marka website-ka saddexaad so website kiiga hadaan taab cusub furno waa kaasa magaciisa waxa la gaarsiyo.com sidaan ayuu u muuqday so design-kiisa qaabkiisa waxa ujeedaa marka hore inuu sidaan ahaa qofkan uu dhisaynay oo base-ka theme-ka oo qofka isticmaalay mid cariiri ah inuu ahaa so postiyada isan markii hore aad loo arkeenin marka si guud website-kan aan fiirino marka result-ii ka soo baxday sidoo isku bedelay so website-kan haddii aan taab cusub u furno oo website-ka aan booqano waxa ujeedaa markaas in website-ka design-kii mid ka hore ka duwan u saarna maadaama uu yahay mid articles iyo waxyaabahaas la xariira theme markaas kii hore ka duwan oo markaas news ahaan camal so theme-kan oo kale inaan u saarnay so theme-kan oo kale tusaale ahaan asensiga way fududaa marka hore inuu ka soo aqbalo markaad saarata website-kaada so qayb waxa ujeedaa postiyadii categories-kii wixii dhammaan inaan u kala yeelno markaasi okay haddaan had tusaale ka soo qaad qaybtan freelancer-ka qayb waxaan ku haynaa menu okay haddaan hal postigan oo kale aan ku dhufto waxa ujeedaa markaasi inuu sidaas u muuqanayo design-kiisa waxoo dhan qaybta freelancer-ka qayb walba markaasi sidaas inay u muuqanayso okay markii lagu dhufto qayb walba soo markan oo website gaarsiiyo oo design-kiisa marka hore sidaas ahaa oo aan sidaan u bedelnay isaguna dabcan seelata difference ayaa markaas u dhaxayn doona soo marka aan fiirino website-ka ugu dambeeya so kani waa website-ka afaraad markaasi kan qaybtii before-kiisa marka hore ma hayo laakiin website wuxuu ahaa aan dhisnay qof client ka mid aan dhisnay dabcan qofkana waa agency oo website iyo waxyaabahaas ay sameeyaan so design-kiisa waa hagaajinay website-ka magaciisa waa laqabyo.com design-ka marka sidaan uu egyahay surface-yada ay bixiyaan e-learning haddii rabto booqan kartaan website-ka markii hore wuxuu duwan yahay waa mid agency meeshaan waxa ujeedaa marka dhowr design oo template-yaha inay yaalaan dabcan waxa template-yadana qofka siga haysta oo diyaarinay qaybtan sidoo kale waxa ku qoran orwork shaqada markaas qabtaan markaas template-yada ay hayaan okay haddii template mid kamid aan ku dhufto sidaas ayuu u muuqdaa template-yada waa kuwa diyaarsan oo qofka mid ka hore waa doornaa website lagu dhisaa qaybtan waa qaybta surface-ka markaas okay surface-yada bixiyaan website e-learning waxyaabahaas e-commerce so qaybtan sidoo kale waa qaybta about us-ka okay about us sidaan uu egyahay website-yadooda markaas inay yihiin responsive kuwa clean design ahaan marka waxaan adeegsanaa dabcan wajidi waxyaabo kala duwan qaybta kale sidoo kale contact us-ka waxa ujeedaa markaasi inuu sidaan u egtaa form-ka uu qofka halkaas kala soo xiriirayo isaguna so website-yada aan dhisna markaas intaan kaliya kuma eko website dhowr aan dhisna ayaa jira laakiin mid walba markaasi qaarkood journey-ga ma sameynin oo markaasi qaybtii hore before-kooda maanan duubin website-yada dhisna waxaa kamid ah midkan sidoo kale ay ku qoran tahay markaasi Isra Agency waaye qayb travel ahaan so kan insha Allah tutorial YouTube waa soo sameyn doonaa sida loo sameeyo travel agency website so kan wuxuu kamid yahay marka website-yada aan dhisnay oo markaas website travel agency ah oo soo ujeedo meeshaan form hore ayuu wajiga ku leeyahay qofka iska register gareynayo formkiisa buuxinayo qayb contact asuu leeyahay dhammaan page ayuu leeyahay design-kiisana aad ayuu u wanaagsan yahay so marka kana wuxuu kamid yahay sidoo kale website-yada markaasi aan markaasi power gareynay web dhis ahaan so marka waxaa jira markaasi website kale sidoo kale website-kan kale isan lagu magacaabo markaasi daryeel consultancy firm sidoo kale wuxuu kamid yahay website-yada markaasi aan power gareynay markaasi aan dhisnay 2023 sidoo kale website-kan isaguna qaybtiisii hore markaasi before-ka maanan duubin laakiin difference weyn ayaa u dhaxeeyo saan qiyaasay sidii hore sidan oo website-kan marka sidan ayaa haddaan u dhisnay ugu dambeyn oo muuqaalkiisa qaab ahaantiisa u muuqdaa oo sidii hore waa uu ka duwan yahay wuxuu leeyahay pages ujeedo wuxuu leeyahay project iyo waxyaabo badan ayuu leeyahay so marka waxaad meeshan ka fahmaysaa dhammaan website-yadan markaasi aan power gareynay inay markaasi hal mid ay ka wada step-kooda sameeyeen taasoo ahan markaasi marka koowaad ee website aad dhisayso mar walba midabkiisa ha isla ahaado okay hal midab la isticmaal waxaa isticmaalsaa color primary ah iyo secondary color isticmaal okay so primary color-kaada weyn hadduu u yahay blue kaba soo qaad secondary color-kaada waa inuu noqdaa
mid yar buluug camal qaxwo camal oo soo sidoo kale fontigaada hal mid adeegsi iyaduna sidoo kale design-ka haysa lahaado website-ka yuusan kala duwanaanin soo marka uu kaasa tutorialsna oo kasoo wadnaa marka hadda u baahan tahay inaad barato xirfadan website sameynta iyo maxaa sida loo sameeyo WordPress website oo gaar ahaan blogging ama news waxaa jirta koorso aan ka diyaarinay qaybta link description-ka video ayaan dhigaa ku dhufan kartaa sidoo kale intro halkaas ayaad ka daawan kartaa sidoo kale haddii aad u baahan tahay in website markaas design-kiisa dib lagu bedelo markaas sida kuwan camal aan u sameynay ama website lagu power gareeyo sidoo kale waa la soo xiriiri kartaa insha Allah muuqaalka xiga ee qaar badan